Gabadhan waxa ay ku soo kor dhacday nin wadada dhinaceeda taagnaa, ninkiina waxaa dhulka uga dhacay taleefan uu watay, waxa uuna ku yidhi maxaa kugu dhacay ma qabtid miyaa indho, kadibna ninkii gabadhii waxa ay ka daftay taleefankii dhulka ku dhacay, waa ay soo carartay ninkiina kama harin oo waa uu kasoo daba cararay, gabadhii sidii u cararaysay waxa ay markaasi imaan doontaa gurigeedii. Dad badan baa u maleeya gabadha inay tuugo tahay laakiin fadlan muuqaalka dhammayso. Gabadhii siday u cararaysay waxay timid gurigeedii, kadibna ninkii waxa uu ka dabagalay gurigiisii markaas taleefankiisa uu uga soo qaato. Gurigii marka uu soo galay wax jooga ma arkin. Waa uu wacay wuxuu yidhi naa taleefankeyga isii gabarey. Laakiin gabadhii codkeeda ma maqlin. Kadib wuxuu isku dayay inuu qolalka ka raadiyo. Qolkii ugu horreeyay markuu galay, gabadhii oo meel kor ah ka eegaysay ayaa ninkii qolka ku soo xirtay. Kadib ninka waa uu naxay, naxtin darteeda wuu isku darsamay wuxuuna yidhi naa taleefankeyga isii albaabka iga fur. Naagtii waxay tiri ku jir halkaaga, taleefankaaga waan ku siin doonaaye. Kadib maxaa dhacay? Dad badan ayaa isweydiinaya gabadha maxay taleefanka u soo xaday haddiisan tuugo ahaynin. Markaa xoogoo yar kadib waxaa albaabka ka soo galay naagta ninkeedii oo markaasi aamoodidba ruux aan caadi ahaynin. Gabadhii ayaa ninkeedii sida caadiga ahayd u soo baxday. Hadal iyo markaasi sheeko yarba maba dhex marine ninkii waxa uu biloobay naagtiisii inuu dharbaaxsho la dhaco. Ninka sidaan ayuu naagtiisa u dili jiray. Markasta ayuu jir dili jiray. Wax ka celiyo oo markaasi ninkan meel ka saara ayay waysay. Waxayna markaasi ku fikiraysaa ninkan ee gudaha soo gelisay inuu markaasi maqlo waxa ka dhacaya halkan si uu gabadha uga celiyo. Ninkii tinta mar uu ka jiido xaaskiisii iyo mar uu dharbaaxsho la dhaco ayuu ka dhigay. Waxa uuna u ekaa ruux cabtooy ah oo markaasi aqligiisa dhiman yahay. Ninkii meesha ay kusoo markaasi qolka kusoo xirtay ayaa waxa uu dhageysanayaa ninka iyo naagta waxa dhacayo, wax markaasi dhexdooda ka dhex dhacayo. Aad buu u yaabay ninka gudaha ku jiro, hadalkiiyo dhanna si fiican ayuu u maqlayay. Ninkan cabtooyda ayaa naagtiisa jirdilkii ku wada. Markaa naagta sidan ayuu u dili jiray. Markii ay iska celin weysay oo ay u weysay qof ka celiyo ayay go'aan ku gaartay inay qof u raadiso. Naagtii ninkii markuu soo dila kadib waxay u timid ninkii ay qolka kusoo xirtay. Waxa ayna u keentay taleefankiisii. Wuxuu ku yidhi taleefankii markuu qabsado naa maxaa kugu dhacay qayli ayaan maqlayay. Kadib waxa ay u sheegtay waxa ku dhacay. Dhib ayaa i haysta ayay tiri. Intii aad maqashay ayaana gurigan ka jiro ee fadlan ma laga yaabaa inay caawin kartid. Ninka wuxuu yidhi ku laabo fadhigii. Kadibna waxaan duubi doonaa fiidiyow si aan ninka u dacweyno. Kadib naagtii waa ay soo baxday. Ninkii asiga oo la fahmin ayuu rabaa inuu fiidiyow ka duubo. Naagtii waxay soo qaaday galaas biyo ah waxayna u keentay ninkii. Ninkii kalena qolka ayuu ku jiraa wuxuu bilaabayaa inuu fiidiyow duubo. Naagtii galaaskii biyo aheed ayay ninka ku daadisay. Ayada oo markaasi ninka fiirinaysa ficilkiisa. Ninkii ayaa soo istaagay gabadhii dharbaaxsho daanka ugu shubay. Dharbaaxshada qoftan way taqaanaa oo waaba hore ayay u garaaci jiray ninkeeda. Kadibna ninkii qolka ku jiro ee fiidiyowga duubaya ayaa is celin waayay. Dharbaaxshadii labaad inta aan gabadha loo dhiibin ayuu gacanta uga dhagay. Waxa uuna ku yidhi waryaa maxaa kugu dhacsa qajaan yahow. Gabdhaha miyaa la dilaa mase gabar ayaa la taabtaa. Yaa ku yidhi xaaskaaga ayaa la garaacaa ruux yahow aqliga maran ayuu ku yidhi. Kadibna wuxuu dhahay waxaan kaa duuba fiidiyow. Haddii aad gabadha mar dambe u gacan qaadid ogow fiidiyowga ayaan tusin doonaa booliska waana lagu xiri doonaa. Ninkan cabtooyda ah ee gabadha qaba wuxuu yidhi booliska aad sheegaysidba aniga ma aqaano. Boolis waxa la dhaho ma garanayo ayuu ku yidhi. Naagteedii aniga maxaa dhexdeena markaasi ku galiyay. Ninkii cabtooyda ahaa markii ugu dambeyn waxaa dhacday in gabadhii laga badbaadiyo oo guriga laga saaro.